sirta ah ee hadda baraha bulshada qabsaday ee barta Facebook-ga aad ugu baahay fariinta ka timid General Ciise Yurux oo kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland ee ka dagaalamaya buurleyda Calmiskaad yaa weeye cida soo qarxisay ee xilligan lagu tuunsan yahay inay codka generaalka ay banaanka keeneen codka la soo qarxiyay oo dhameystiran waxyaabihii ku hadlayay generaalku ma wax jira mise wax uu iska samaystay isagu iyo waxa la gudboon maantay beesha uu la hadlayay oo ah reerkiisa Cali Suleymaan waan idin la wadaagi doonaa dhammaan macluumaadadaas xaqiiqada waxay tahay in isbuucan ama maalmaha inagu soo wajahan ugu dambeyn la gaari doono natiijada dagaalka ama kooxda argagixisada ah ee Daacish ayaa jilib ka aasan doonta gaatir oodan oo meesha hadda lagu wajahan yahay ama ciidamada difaaca Puntland ayaa guuleysanaya generaalkuna waa ka dhawaajiyay arintaas waa idin la wadaagi doonaa dhammaan macluumaadadaasi soo dhawaada dhammaantiin muuqaalkan la gareeya share gareeya YouTube-kana ku soo biiro aad baad mahadsantiin intaana war dhanba u gudbin codka generaalka waxa ilaahay mahadiisa in uu yahay isagu nin ciidan ah oo khibradiisu ay tustay inuusan macluumaadyo muhiim ah una banaanka keenin xataa isagoo la hadlayo reerkiisa balse si guud uu u diray fariin dhiirigelin u ahayd ciidamada difaaca Puntland xaalka maanta ciidamada difaaca Puntland ay wajahayaan nooca dagaalka uu yahay cida lala dagaalamayo waxa looga baahan yahay qabiil kasta oo reer Puntland ah inuu kaga warqabo ciidankiisa kaga sugan jiidaha Calmiskaad fariin adag waxay ahayd kumbileed ah oo isku dhameystiran oo generaalku uu kula hadlay dawladda Puntland iyo qabaa'ilka Puntland waa isaga oo la hadlaya reerkiisa oo aan ugu talagelin xataa reeraha kale ee Puntland waxaadna moodaa in generaalku sii ogaa in codkiisa banaanka la keeni doono taas oo keentay inuu wax badanna la kala haro codkiisuna uu noqday cod anfacay ummadda reer Puntland xilligan xasaasiga ah muhiimadda guud ee dulucda codka generaalku aan hadda idin la wadaagi doono waxa weeye faraska waxa usha loogu dhuftaa in xawaaraha uu sii badiyo ama uu sii dheereeyo waa kana ila dhageysta codka uu beeshiisa Cali Ismaaciil Cali Suleymaan la wadaagay generaalku waxaan rabaa inaan idin sheego Daacish 2 dagaal 3 dagaal 4 dagaal baa lala galay waa laga guuleystay way se joogtaayo way badantahay way buuxdaa waxa weeyaan argagixiso weeye waxay isticmaalaysaa qarax waxay isticmaalaysaa baabuur qaraxa waxay isticmaalaysaa miino dhulka lagu aasaayo waxay isticmaalaysaa isneebar waxyaalahaas oo dhan bay adeegsanaysaa tabarteedii weynayd waa miiqantay dagaalka mar dhow waa la kala baxayaa bisha tan gudaheeda qolo baa jifida jiidaysa ama Daacish baa laga adkaanayaa ama ciidamada Puntland baa laga adkaanayaa waxaan rabaa horta inaan idin sheego haddaad wax qabanaysaaniin oo wax qabadku idinka dhab yahay dad idinla midaba taladooda iyo tayadooda iyo muruqooda iyo maalkooda intay meel isugu geeyeen dekada ku dhistay idinka waxa la idinka baahan yahay logistico maanta dalka lagu xoreeyo weeye haddaad awoodi kartaan qofkii qof lacag isaga dira ama 10kii qof oo qof lacag u diraana waxba ma ay qaban dad baa waxa laga sheegayaa dawladdaanu lacagta u diraynaa dawladda cashuurtii boosaasa laga qaadi jiray ganacsatada boosaasood raashin iyo bagaash iyo alaab bay ku baraxanayeen tani way ka hooseysaa hadda dawladda u dilaaniin waxay noqonaysaa waxaad libin iyo waji ku raadinaysaaniin wax cidi idinka baahantaa maaha dawladda adduunka oo dhan baa taakulaya cid walba taakulaysa 10 milyan 20 milyan 15 milyan oo taakulaa baa Saciid Cabdullaahi Dani loo soo dirayaa
hal qoriyo isneebar oo cadowga aanu iskaga difaacno iyo hal cagaf oo aanu wadada ku goyno meesha qaraxu naga soo gelayana noogu gadi maayo waxa weeyaan nagana yeeli maayo waxaad yeeshaan marka waxa ku habsaaminina waxaad u gudubtaan inaad guddi samaysataan waxaad u gudubtaan inaad madax samaysataan waxaad u gudubtaan inaad ismaqashaan waxaad u gudubtaan inaad taladiina midaysaan waxaad u gudubtaan inaad maalkiina midaysaan intaana la ka adkaan oo cadowgu naga adkaana haddii aad wax qaban ka dhaanin wax nala qabta markaad maalkiina midaysaaniin taladiina midaysaan muruqiina midaysaanna waxa weeyaan cid gaara waxa siinina nala soo hadla markaasaanu haddii aan laydmo shayada aanu u baahannahay iyo meesha laga heli karo iyo cidda keeni karta aanu isweydiinaynaa laakiin macno noo samayn mayso ciidana ii badbaadin mayso nin fartu gooday noo badbaadin mayso haddaad galabta 2 milyan 3 milyan noo soo didhaan waxaa wax noo ah oo waxtar noo ah oo difaaca dalka iyo dhimashada iyo dhiigbaxa aad nagala qayb geli kardhaanin inaad noo gadaanin aaladda lagu dirirayo cadowgu nagala soo horkajeedo inaad noo gadaanin meesha laga heli doono waqtiga la heli doono qiimaha ay joogto dib baan ugu noqon doonaa markii wax idinka diyaar garo su-aasha isweydiinaysa marka yay tahay cidda soo barnaamijka keentay codka horta codka wax dhiba kuma jiraan qofka codka noocaasa barnaamijka keenay ilama ahan codad kale oo jenaraal ciise yulux uu ku duubay groupka telegramka ee qabiilkiisa buu cafin lahaaye mar hore uu soo gelin lahaa waa sax dagaalka ama puntland baa laga adkaanayaa ama daacish baa la jibinayaa qof kasta taas waa aaminsan yahay markaan leeyahay macnaheedu inay daacish balaayad tahay oo qar aan la jebin karin ma ah ee waa xaqiiqada dagaalka xataa adoo awood leh ayaad nin ragaa kula mid ah laysma siiyo guusha guushana ilaahay baa xukmiya waa qodob oo waa runtiis maalmaha la isbaran doona waa maalmaha soo socda weeye oo daacish ay diyaarisay ismiidaamayaal 180 kor u dhaafaya qaabkii looga hortagi lahaa iyo shaxdooda ciidamada u taalla waa marka labaad oo arrinta dowladda uu yiri generaalku dowladdu madaxweyne dani hal isneebar iyo hal cagaf xataa nooma keenay waa run oo taas waxa kuugu abdaa ma ahan dowladdu inay xumaynayso iyaga ama ciidamada kale ee puntland xumaynayso anigu salaano kale nin gobolka mudug ka imaaday baan ahay ciidamo badan oo reer mudugaa jooga ciidanka reer muduga iyo ciidanka reer bariga ahba waxaa laga yaabaa dowladdu wax guud inay soo wada gaaraan salaano kale qoriga isneebariska iyo dowladdu keentay oo ay ku soo gaday lacagta qurba joogtii shacabka ugu deeqeen waxa laga yaabaa inay hal qori siiso oo baahidii ciidankii mudug ka tagay ayna ku filnayn waa runtiis weey waxa fahmi kara qof ciidan ah baa fahmi kara arrinta uu dowladda u jeediyo daliil ma ahan waa wax sax ah oo xeerarka ciidamada iyo dowladaha ah waliba markaynu Soomaaliya joogno dowladdu ma kaafin karto baahida ciidanka waa qodobkaasi saasu asagu ku duur xulan yahayo waa qodob halkaas qorshiisu uu yahay wuxuu la jeedaa war ama wixii dowladdu heshay dhaqaalaha waxay ku bixinaysaa raashin iyo dhaawac iyo rasaas qoriga aan u baahanahay tusaale kale cagaf hadaan u baahanahay ama aan u baahanahay ii sheeg snipers ma helayo waa runtiis oo wuxuu qabiilkiisa ku baraarujinayaa in wax kasto isagu u haysto ama iyagu u baahan yihiin iyaga laga xisaabtamo oo aysan sheekadooda ku ekaan reer hebenow waxaan lacagtii ku dirnay amal ninka amal lacag ku diriyay isaga u taala laakiinsi waa in arrinta generaalku ka dhawaajiyay Cali Salebaan ay shaqadeeda qabtaan haddana way ku jiraan sida aan xogaha ku helayo oo qorshuhu waa socday ee codka generaalka hadda lagu soo aadiyay si macnaha qolada soo qarxisay ay ummadda fidna u kala dhexdhigaan mana ahan bacod fidna waa cod wanaagsan oo guwaaba ah nin tolkiis la hadlaya xaqiiqada ka hadlaya way qodobadiisu intaas ku sayaan generaalku waa faraska waxa uu loogu dhufanayo inuu xawaaraha badiyo weeye iyo talada dowladda ma ahan dowladdu inay hakranayso ma ahan inay si kale u hakranayso ee waa xaqiiqada dhabta ah anaga ciidamada naga joogo gobolka mudug halkaas qabaa'ilkana wixii ay mataqaanaayeen ka dhiman ugu daray haddaba qabaa'ilka reer Puntland dagaalkan waa dagaal qaran
waad u jeedaan saraakiishii deegaanka u dhalatay baa sidaas u hadlayso reer walba oo reer Puntland oo ciidamadoodu halkaasi ku sugan yihiin wiilashoodu waa inay ka warqabaan ciidamadooda isnaybarra u gadaan wax walba u gadaan waa in dagaalka dawladda aan lagu fiirsan markaan macnaheeda leeyahay waa in hubka loo gado ma ahan dawladda in la yasayo ma aha ama dawladda laga guurayo ma aha dawladdu waxyaabo badan oo aan lagu fiirsan karin dagaalka in la isgarab taagaa muhiim ah oo qabiil kasta oo reer Puntland gobol kasta oo reer Puntland